taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa magaalada caasimadda Muqdisho waxa uu ka furay shir looga hadlayo amniga guud ee dalka iyo dib u habeynta lagu sameynayo tayada ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo qorshaha sanadka cusub ee aynu ku guda jirno ee 2020 shirkan waxaa ka qayb galaya talisyada ciidamada booliiska dowlad goboleedyada dalka ka jira taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sareeye Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa warbaahinta sharaxaad waxa uu ka siiyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkan diiradda lagu saarayo muddada uu socdo iyo ahmiyadda gaarka ah ee uu leeyahay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed shirarka noocan oo kale ah shirkan maanta ku saabsan yahay inaan idin la wadaago waxaanu isugu yeernay xarunta taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhammaan taliyayaasha ciidamada maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ay ka kooban tahay dowladda federaalka ah ciidanka booliiska ee federaalka ah madaxdooda si ay u wajahaan qorshaha cusub ee 2020 wixii caqabada ay qabaan aanu ka dhageysano lana socodsiino awaamiirta cusub iyo qaabka la rabo in loo wajaho sanadka cusub si ay ka warqabtaan ciidanka booliiska waxaa ku socota dib u habeyn dib loo habeynayo ama reform tiradiisa tayadiisa iyo maamulkiisa aad baan waxaan ku soo dhaweynayaa magaalada Muqdisho xarunta booliiska waxaa nagala soo qayb galaysa agaasimaha guud ee wasaaradda amniga oo maamulka guud ee booliiska gacanta ku haya si uu noola ogaado baahiyadeena kala duwan oo awalba uu noogu maqnaa waxaan kaloo rabnaa inaanu iska wareysano amniga guud ee dalka ujeedada ugu weyn ee shirka kan aanu iclaaminay ee aanu dowlad goboleedyada ciidanka booliiska jooga saraakiishii ugu sarreysa ugu yarnay waxa weeye inaanu iska wareysano amniga guud ee dalka xagee marayaa maxaa baahiyood qabtiin maxaa dhibaato oo caqabadahoo jira annakuna aanu ogaano meesha aanu wax marinayno oo taliska guud iyo maamul goboleedyada ay isla jaan qaadaan siday uga wada shaqeeyaan amniga guud ee dalka arrintaas ayuu shirkeenu ku saabsanaan doonaa waa falanqeyn doonaa waa ka soo qaybgeli doontaan mid baanse rabaa inaan idiin sheegno idinkula darmaano amniga dalku xuduud ma laha amniga dalka Soomaaliya kaliya maaha qaaradda Afrika ama bariga Afrika ama dalka gudihiisa amniga dalka Soomaaliya xuduud ma laha marka qofka ugu sareeya iyo qofka ugu hooseeya ciidanka booliiska meel kasta uu joogo ka mid ah dalka Soomaaliya booliis buu ka yahay meeshuu arko ama ribood ha keeno ama dambiilaha ku qabto ama dembi ha ka hortaga intaasna waa idinkula daldaarmayaa mas-uuliyaddaana saaran ee dalkoo dhan naga saaran askarigu meeluu jooga askariga ma xitaa dadka shacabka muwaadiniinta ah sida loola macaamulayo community policing saanu sameynayno saanu isu kaashan lahayn arrintaasay ku saabsanaan doontaa wuxuu noo socon doonaa muddo 2 maalmooda intaasaan idinku soo dhaweynayaa waana wada joogi doonaa muxuu ahaa taliyayaasha maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ka yimi ee qaybaha guud haya iyagana muxuu ahaa si gaar gaar ah arki doona. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Yusuf Maxamed Axmed Galmudug TV